gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa Kambala ayaa soo qaban qaabiyay munaasabad lagu weyneenayo maalinta afka hooyo. xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha jaamacadaha kala duwan ee dalka Uganda ku matala ardayda Soomaaliyeed, xubno ka socda ururada bulshada rayidka, ganacsato, abwaaniin iyo sida oo kale xubno madasha munaasabada ku matalaya safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda. ugu horeyn madasha munaasabada ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, asagoo dardaaran dhinacyo badan taabanaya u jeediyay ardayda wax ka barata dalkan Uganda. marka waxaan idinkula dardaarmayaa in maalintan iyo afkeena hooyo aan ilaashano hadduu alla idmo, xitaa haddii ugu yaraan aanan wax ku soo kordhin karin kollayto bal intii awoowayaasheen naga soo gaartay inaanan sii daynino aan haysano markaasi aanan lumin. laakiin sida xaqiiqada ah inta badan hadda afkeena Soomaaliga inaan ku hadalno marka laga soo tago wuu sii lumayaa. haddii aad fiiriso xafiisyadii dawladda waxa laga isticmaalayo waa afaf qalaad waxbarashadii. marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo maadaama dhalinyarada dalka oo bulshadani aan dadkii ugu badan ka nahay, hadduu alla idmo inaan awoodeyna ugu faa'iideyno iyo cilmiga aan baranayno jiritaanka iyo markaasi in aanan lumin luqadeena afka hooyo. qaar ka mid ah waxgaradka iyo abwaaniinta Soomaaliyeed ee qayb ka ahaa munaasabada ayaa ka hadlay sooyaalka iyo afka Soomaaliyeed marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray. markii labada gobol isku biireen dawladii rayidka ahayd dhalatay ama shacabka ahayd waxay isku dayeen afka in la qoro, maadaama dadka inna Talyaani taqaanay oo waraaqaha Talyaani lagu daabacayay qolana Ingiriis ku qoraysay si marka isfahan halka ka jiray isfahan waagaas Soomaali looga dhigo. dadaalkaas gudiyaal sameeyay gudiyadii ma mira dhalin, laakiin wuxuu ahaa hiyikac. sidoo kale Soomaalidu waxa ka guuxayay xafarta la qaadan doono noocay tahay dhalin wada hawshaysiyo haddii duulan la habayo hubko lala ordaayiyo hadday heegan u noqoto hanqa dhacay sidiisii rasaas ugun ka yeedhayo higta belelka haadkoo dhergiyo higil madoobaaday fulay waa nin kula haybada oo laga hayaa meele halkuu kaaga toosna haddii dhaxani ka hayso hooma waad huraysaa rabow gaalo ku hilbees. waxaan lahaa in taqaanaa qof walba ka qayb qaato afkeeni sidii dadkii naga horeeyay noogu soo shaqeeyeen anagana inaan u isticmaalno oo mataqaanaa caruurteena iyo dadka naga dambeeya si aysan uga dhaxlin ereyo cusub oo anaga aan soo gelinay. waan uga mahadcelinayaa wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ama midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mr. Fiidka runtii juhdiga ku bixiyay xafladan inay dhacdo aadka u qiimaha badan loogu dabaaldegayo afkii hooyo. afkii hooyo waa wax aad u cajiib ah. anagoo kaashanay dhammaan safaaraddeena bulshadeena maanta hanoo noqoto maalin ruantii waxa weeye gudoomiyaha horta ugu mahadcelinaya mahadal kuma jiro anagoo kaashan doona safaaradda iyo dhammaan xubnaha kale idinkana inaan tashan doona. waxaan rabnaa biidnillaahi rabbana inaan maalinteeda ka dhaqan ka duwan aan ku hirgelino biidnillaahi rabbana. gabagabada madasha munaasabada loogu dabaaldegayay 21 February ayaa waxaa soo xiray mudane Jibriil Afyare oo safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ku matalayay madasha munaasabada. Soomaaligeena ama afka hooyo waa af maxay soo jireenaha oo maxay Soomaalidana runtii ku faanto. waagii la qoray Ilaahay u naxariisto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre أنا waxaan xasuustaa anoo yar ubax kacaankan ku jiray naftirkeygu ma yiri odaygaas baa xeerka aan ka yarahay guuleysta isgarab qabsada hadaalina dal baan sugayay dad baan sugayay Soomaaliya idinka u maqan wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi. 21 February oo loo asteeyay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayaa waxaa looga dabaaldegaa dalka Soomaaliya iyo guud ahaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalka caalamka. Sikriya Qaasim Maxamed Bagax, dalka TV, Kambala.